Assalaamu calaykum. Qof walba si buu u arkaa macnaha guusha. Qaar ayaa u yaqaana in guushu tahay xagga dhaqaalaha oo guul laga gaaro. Tusaale ahaan in milyaneer la noqdo. Qaar waxay u yaqaanaan in abaalmarino helaan. Halka ciyaaryahanadu ay u yaqaanaan inay koobab iyo bilado ku guuleystaan. Kuwo kale ayaa guusha u yaqaana in ay caafimaad iyo farxad helaan. Si walba oo aad u taqaanid guusha, maanta waxaan kuu sheegayaa 10 dabeecadood ee ay leeyihiin qof kasta oo guuleystay sidoo doonaha u yaqaana guusha qodobka ugu horeeya waxay dhigtaan ama samaystaan hadafyo. Badanaa way adag tahay inaad la kulanto qof guuleystay oo hadaf lahayn, sababtoo ah fursadda aad ku raadinaysid waxa aad rabto ayaa ah hadafka aad leedahay. Haddii aadan aqoon meesha aad u socoto, safarka noloshaada waxa uu ku dhamaan doonaa meel aadan ogeyn. Inaad hadaf yeelato waa nambarka koobaad. Waa inaad siisaa mudnaanta koobaad haddii aad tahay qof doonaya inuu guuleysto. Waa inaad qeexdaa waxa aad u baahan tahay iyo hadafkaaga u dambeeya. Waa inaad isweydiisaa sababta aad u doonayso in hadafkan aad u gaarto. Markaas dhibaato walba aad la kulanto waxba uma arki doontid, waayo waxaad leedahay awood iyo ujeedo aad hore ugu sii socon karto. Qodobka labaad waxay qaataan mas'uuliyadda noloshooda. Furaha kale ee sifooyinka dadka guuleysta ayaa ah inay qaataan dhammaan mas'uuliyadda khasaaraha iyo guusha noloshooda soo wajaha haddii ay sida ay wax u rabaan u dhici wayso. Ma eedeeyaan dadka kale oo waxay ka bartaan casharo iyo in mar kale aysan ku soo laaban qaladkan oo kale. Awooddaada waa inaad ku bixisaa waqti xaadirka iyo qorsheynta mustaqbalka. waana inaad ka fikirtaa sideen u qabtaa hawshan iyo maxaan ka baran karaa. Ku noolaanshaha waqtigii tagay inaad samaysid cudurdaaryo waa sababta aad u joogin meeshii aad rabtay. Xusuusnow, qof walba waxa uu la kulmaa dib u dhac. Qof walbana waxa uu haystaa fursadda ah inuu dadka kale eedeeyo ama uu hore u dhaqaaqo iyo in uu abuuro mustaqbal aad u fiican. Qodobka saddexaad waxay leeyihiin anshax fiican. Anshaxu waa sifo xooggan oo ay leeyihiin dhammaan dadka guuleystayaasha ah, waana mid lagu horumarin karo isticmaal joogto ah. Way fududahay inaad yeelato anshax haddii aad leedahay hadafyo cadcad iyo ujeedooyin macno leh. Qodobka afraad ee dadka guuleystayaasha ah waxay ku adag yihiin horumarka noloshooda. Ma sheegan kartid inaad tahay guuleyste adigoo ka quustay noloshaada. Taasi lama macno aha in aadan weliga qancaynin, laakiin waxay micnaheedu tahay in dabeecadda bini'aadamku tahay in ay korto iyo inay wax cusub barato. Furfurnaaw si aad wax cusub u barato, maskaxdaadana u horumariso. Mar walba aad wax barataa waa mar walba aad wax kasbataa, dhaqaale iyo ruux ahaanba. Qodobka shanaad dadka guuleystayaasha ah waxbay aqriyaan inta badan. Aqrinta waa wax ay ka siman yihiin inta badan dadka guuleystay. Maalmahan aan ku jirno, qofku ma fariisan karo 2 daqiiqo keligii isagoon caajisin, isla markiina mobilkiisa ku mashquulin asiga oo social media soo dhigayo inta ay la eg tahay caajiskiisa. Si kastaba ha ahaatee, dadka guuleystay mar walba waxa ay ku faraxsan yihiin in ay keli noqdaan, ayna fursad u helaan inay wax akhristaan ama dhageystaan, taasoo faa'iido u ah maskaxdooda iyo mustaqbalkoodaba. Qodobka lixaad guuleystayaashu waxay si fiican u maamulaan waqtigooda. Maamulidda waqtiga waxay lagama maarmaan u tahay guusha dadka aan guuleysan. Mar walba waxay ku wareeraan marka ay shaqo badan u taalo, halka dadka guuleystayna ay mudnaanta koowaad ka dhigaan shaqada ugu abaalmarinta badan. Waxayna qorsheeyaan maalin, isbuuc iyo bil walba, iyagoo og waxa u baahan in la dhammaystiro iyo gaaritaanka hadafkooda. Sifada toddobaad ee dadka guuleystayaasha ah waxay qaataan khatarta. Haddii aadan qaadan khatarta, baqtiyaa nasiibka kuma guuleysanaysid. Haddii aadan qaadan khatarta, ma gaari kartid abaalmarino waaweyn. Dadka guuleystay waxay og yihiin in ay jirto waqtiyo qaar ay qasab tahay in la qaato khataro waaweyn si ay u helaan meesha ay rabaan inay aadaan
inta badan. Dadka intooda badan ma qaataan khataraha iyagoo ka baqaya inay guuldaraystaan. Sifada sideedaad ee dadka guulaystayaasha ah way sii socdaan marka ay la kulmaan guuldarro iyo dib u dhac. Annaga oo dhan ayaa la kulanna dib u dhacyo. Qof walba oo isku daya inuu noolaado nolol uu ku riyoonayo waxa uu la kulmaa guuldarrooyin badan. Xataa waxa ay ku guuldaraystaan wax walba oo ay haystaan. Badanaana dadka markay halkaa marayaan way quustaan. Dadka guulaystayaasha ah marnaba ma quustaan iyagoo og in sheekada guushooda qori doonto daqiiqad walba ilaa laga gaaro hadafka. Qodobka 9aad waxa ay raadiyaan waddo ay ku guulaystaan. Dadka guulaystayaasha ah mar walba waxa ay raadiyaan waddo iyo muddo ay ku guulaystaan. Mar walba oo ay noloshu isku daydo inay ka leexiso waddadaas oo ay iska celiyaan. Wax walba oo dhacana marnaba kama leexdaan hadafkooda. Qodobka 10aad ahna kan ugu dambeeya ee sifooyinka guulaystayaasha waxa ay sameeyaan waxa ay jecel yihiin. Haddii aadan qabanaynin waxaadan jeclayn, nafsadaada kuma magacaabi kartid guulayste. Adigoo ku bixinaysid waqtigaaga inta ugu badan waxa aadan jeclayn lacag darteed, taasi ma ahan guulaystayaasha noloshooda, laakiin waxay ciqaab ku tahay nafsadaada. Inta aad ka shaqayn lahayd waxa aadan jeclayn, waxaa kuu dhaantay inaad ka shaqayso waxa aad jeceshahay maalin walba iyadoo lacag la'aan ah, si nafsadaada u hesho qanaaco, horumar iyo deganaan. 10kan qodob waa sifooyinka dadka guulaystayaasha ah. Haddaba asxaabta kanaalka Ilcuda Tube, sifooyinkee kala mid tahay dadka guulaystayaasha ah? Noogu reeb dhanka hoose ee kommentiga. Intaas ayaan jeclahay inaan ku ekeeyo maanta. Wassalaamu calaykum.